waxaa magaalada Muqdisho in badan caan ka ahaa xilliyada doorashooyinka boorarka murashaxiintu ku dhagsadaan wadooyinka faras magaalada ah kuwaas oo muhiim u ah isku socodka markaan sidaad ku taqaaneen boorarka lagu dhagsado wadooyinka ma aha oo Abubakar Axmed Xuseen oo ah wiil dhalinyaro ah kaasoo 2 sano ka hor ka qalin jabiyay mid kamid ah jaamacadaha dalka ayaa boor ku dalbanayo shaqo ku soo dhajistay magaalada bartankeeda isagoo ii sheegay in go'aankani ku dhashay waqti badan oo uu baaga muddo ahaa arrintaani waxa uu kalifay shaqo la'aanta magaalada ka jirta markaan fiiriyay oo problemka magaalada ka jiro oo shaqo la'aanta ah oo wax badan shaqo raadinayay markaas ay uu kaliftay inaan akeen aniga 4 sano jaamacad dhiganayay computer science corner dugsiga iyo barnaamijyada waxba soo dhiganayay waqti badan waxbarashada iga galay dadku waxaan rabay maadaama waxbarashadayda oo waqti badan soo galay oo ilaa qarash waalidku ugu soo bixiyay waxa ku aaminaa inaan meel fiican ama shaqo fiican ku raaxaysado waxaan joogaa degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir sida u jeedaan waxa dhabarkay ka muuqdo boor uu dhigtay wiil Soomaaliyeed oo kamid ah ardayda jaamacadaha sanadan ka baxday kaasoo ku muujinaya boorka inuu doonayo shaqo waana nidaam ku cusub inta badan aan lagu aqoon dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxday shaqo doonka ah laakiin qaabkan ayaa dad badan waxay u arkayaan inuu yahay nidaam u fududeyn kara wiilka boorkan soo sameystay inuu helo shaqo korarka shaqo la'aan ee ka jirta dalka ayaa sababay in dhalinyaro badan oo wax baratay ay ku noqdaan wadanka gudihiisa kuwa aan helin shaqooyin taasoo dhalisay qaar kamid inay ka qoostaan halgankii shaqo doon ay naftooda ku dabari lahaayeen dhowr nooc isku jiraan qayb dhalinyarada oo jaamacadaha dhigato inay kala waan nijeedinay boorka nijeedo keena in magaaladii anagu hadda wax barayno in hadana aan la'anahay adigii asboor soo dhigsato wax cusub ay la noqotay dadka qaar way soo dhaweynayaan in wax isku dayayo cusub dadka qaarna waxa kala kulmay si kale u fikraya inta uusan ku dhaqaaqin talaabadan Abubakar waxa uu ka talageliyay dadka ugu dhow asxaabta iyo xigaalkiisaba isagoona gacanta wax ku hayn sida ay uga caawiyaan sameeshada boorka uu doonayo inuu laamiga ku dhagsado waxaana ugu dambeyn ku guuleystay inuu lacag deena ku sameysto boorkii uu arkay xalkii noloshiisa sida uu sheegay Maxamuud Muuse Cabdulle oo ah ganacsade saaxiib la Abubakar ninkan saaxiibkayga isaga iyo weelkiisa soo socda ay yimid inkastoo mar dhaxas intuu yimid fikirka uu ii sheegay aan dhaniyo fikirkan aad u wanaagsan yahay magaaladana cid hore sameysay ma jirto adiga hadda ugu horeey isagii maalin dambe isaga weelkiisa soo socda ay yimid isagoo idhahay aniyo barnaamijka rabo inaan ku dhaqaaqo hirgelintiis iyo marka lacag waan u baahanahay oo ah boorki wax inaan ku sameyn lahaa maadaama anigu aan shaqeeyo oo ninkan walaalkeygana uu marna saaxiibkeyga ah oo shaqo la'aan u yahay oo aan rabo inuu aan u garab istaago si ugu baxo shaqo la'aanta lacagtii ayaan diimay wixiina uu soo sameystay boorkiina waa la tagay Abubakar ayaa aaminsan rajada qofka ay tahay mid markasta loo baahan yahay inay noqoto mid aan naaqusin marka loo eego dad badan oo rajo beel ku noqday kadib jaamacado ay dhameeyeen waxaana haatan qabaa rajo weyn ee ku aadan inuu shaqo helo ay horta number 2 ilaahay waxa weydiisanaa xaaladda wadanka uu ku jiro shaqo la'aanta in ilaahay naga saaro lambarka labaadna waxa waaye ilaahay la tala saarto waxbarashada aan la joojino la wado oo iska wado xaalku asoo isbedeli doona insha Allah anina waxaan rajaynayaa inaan shaqo fiican oo nolol fiican ku galnaa helo insha Allah xeelada in la muujiyo shaqo aad rabto hab ka duwan CV meel la geesto ayaa haatan u muuqanaysa mid aan hore uga jirin dalka marka loo eego habka uu maray Abubakar dalabka shaqo raadin taasoo dad badan ay u arkaan mid keeni karta inay u fududaato shaqaylistu Maxamed Ciise Koona Goobjoog Muqdisho